السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti kale oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halka aad naga daawanaysaan waa barta Saadiq Media ku leenahay YouTube-ka, Facebook-ka iyo waliba TikTok-ga anagoo barnaamijyada aan soo gudbino inta badan diiradda ay saaraan fursadaha aqooneed ama waxbarasho ee daayarta Soomaaliyeed run ahaantii aadka muhiimka u ah sidoo kale barnaamijyada dibadaha ee u hirgelin kara dhalinta Soomaaliyeed in ay tagaan ka shaqeystaan ama ay ku noolaadaan maadaama aan ognahay macluumaadka noocaas ah dadka haya inay laba nooc yihiin mid in macluumaadka iyagoo haya in ay ummadda aysan u soo gudbinin oo aysan ka qabtirin ama aysan jeclaynba in bulshadu ay ogaato kuwaasi waa mid kuwa labaadna ay yihiin kuwa wixii macluumaadkii og laakiin raba inay lacag ka sameeyaan isla markaana hagar daamiya dhalinta Soomaaliyeed ama ha ahaadaan gabdho ama ha ahaadaan wiilal ama dad waaweyn haddaba arrinka noocaas ah ama caqabada noocaas ah si dhalinta Soomaaliyeed ama bulshooyinka Soomaaliyeed inta aan ka qabtiri karno aan wax qabtirno isla markaana aan ka caawino ayaan barnaamijyadan run ahaantii diiradda saarnaa barnaamijka maanta aan idin hayna haddaba wuxuu ku saabsan yahay isaguna barnaamij ka dhici doona dalka South Africa barnaamijkan ayaa waxa lagu magacaabaa ALA oo loo soo gaabiyay African Leadership Academy waa diplom sanadka 2026 ee dhici doona markan si guud marka barnaamijkan aan faham guud in ka siiyo barnaamijkan lacagta ku bixi doonta ee ardayga ku guuleystay heli doono run ahaantii waxay ka badnaan doontaa $30,000 sanadkiiba waxa macquul ah in lacagta intaas la eg markii aad maqashaan in ay been idin la ekaato maadaama beentii iyo propagandadii caalamka maanta jira ay run ahaantii maashaysay balse waa xaqiiq waxaan ka hadlaynaa waxaana taas ku cadeyn doona markii aad habka aad u mareysid aad aragtid lagana yaabo qaarkiin inay ku guuleystaan haddaba lacagta intaas la eg ma aha lacag gacanta laga gelin doono laakiin waxay kulansan doontaa dhowr waxyaalood mid koowaad waxay tahay noloshaadii halkii aad degi lahayd wixii aad cuni lahayd caafimaadkaagii iyo waxbarashadii laftigeeda wixii kaaga bixi lahaa iyadoo waliba loo eegayo qofba ama arday kasto barnaamijkan ku guuleysta familkiisa ama qoyska uu ka soo jeedo dhaqaalaheedu sida uu yahay haddaba sanad walba ayaa dalka South Africa waxa la geeyaa arday gaaraysa 120 arday oo laga soo arooriyay Africa isla markaana barnaamijkan ku guuleysata iyadoo markii si guud aan idinku dulmaro oo barnaamijka horta marka koowaad yahay barnaamij diplom ah kaasoo socon doona 2 sano isla markaana la geyn doono ardayga ku guuleysta dalka South Africa gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Johannesburg haddaba barnaamijkan ayaa wuxuu yahay mid kulansanaya manhajka loo yaqaan Cambridge A level sida loo yaqaano iyo sidoo kale tababarka lagu tababarayo ardadaas Afrikaanka ah dhinacyada la xiriira dhinaca hoggaanka iyo hoggaaminta sidoo kale daraasaadka dalalka Afrika quseeya sidoo kale qoraalka iyo wax soo jeedinta iyadoo taasi ay waliba la sii garab socoto ama ay ku lamaansan tahay mashaariic si bulsho ahaaneed looga faa'iideysanayo la tadbiiqinayo bimacnaa practically loo qabanayo sida tababarada traininada Allahumma musta'an waxa loo yaqaano innovationada iyo wixii la midka ah haddaba xarunta jaamacaddu waxay ku taalaa Johannesburg sheegnay oo ah Koonfurta Afrika taasoo sanad kastaba la isugu keeno 120 dhalinyaro oo ka kala socota Afrika haddaba shuruudaha markaan u gudubno sidaad u jeedaanba shuruudda koowaad waxay tahay dadka barnaamijkan soo codsanaya waa inay yihiin dadka dhasha si fiican u fiiri 1 December 2006 dadkii dhashay ama wixii ka dambeeyay isla markaana ay noqdaan baa la yiri kuwa u dhashay dawladaha Afrika inay yihiin iyadoo waliba ay xusan tahay in Soomaaliya ay ka mid tahay sidoo kale qodobka labaad wuxuu yahay waxyaalaha loo ictimaadi doono ama loo eegi doono ayaa waxay noqon doontaa in ay kulansadaan waxyaalaha soo socda in uu qofkani u diyaarsan yahay fikir ahaan oo qofte diyaarsan oo aqoonti ka dhisan u yahay sidoo kale inuu yahay qof geesi ah oo rabo hankiisa iyo aragtidiisa in uu kamera dhaliyo isla markaana u dul qaadanaya sidoo kale inuu yahay qof wax soo bandhig leh macnaha fikrad shaqeynaysa leh isla markaana qaadi kara mas'uuliyadii barnaamijkan ka saareed sidoo kale inuu yahay qof run ahaantii ah bulshaawi ah furfuran beesaani ah isla markaana
ogol dadka kale inuu wax kula tiirsado bimacnaa macluumaadkii uu la wadaago isla markaana aqoontii bulshadii uu dhexgelayay ay isweydaarsadaan ama isdhaafsadaan. sidoo kale waxaa laga rabaa dadka barnaamijkan raba inay ka qayb qaataan in ay yihiin kuwo ogol oo isla markaana noqon kara dad waraysiyo ama doodo ka qayb geli kara ama noqon kara dad meelaha dadku ay isugu yimaadaan waad arki doontaane dadkii hogaamin karo habkii ummadda loo hogaamin lahaa ama loo hagi lahaa u diyaarsan oo kasoo bixi kara. ha noqoto baa layidhi marka laba nooc bay noqon kartaa, in hab online ay noqoto oo hab online barnaamijyada lagu qabto tababaradii dadka ay gudbiyaan, ima inay noqoto qof barnaamij toos oo iyagu barnaamijyadii ay si toos dadka intay u hortagaan ay u hogaamin karaan. haddaba barnaamijkan markaan u gudubno markii uu bilowday waxay ahayd oo lasoo gudbiyey ama daha laga qaaday 15kii bishan hadda aynu ku jirno muxuu ahay toddobaad ee sanadka 2025 wuxuuna dhammaan doonaa 15 Oktoobar ee isla sanadkan ayuu dhammaan doonaa. sidoo kale luqadaha la rabo in qofkani markii barnaamijkan uu rabo inuu ka qayb qaato su'aalaha uu kaga jawaabaya waxay yihiin 3 luqadood. waa luqadda 4 luqadood sorry 4 luqadood weeye. waa luqadda Ingiriiska, Faransiiska, Portugiiska iyo luqadda Carabiga. intaa kadib marka aan fiirino kharashka qofkan ku guuleysta ama guud ahaan barnaamijka ayaa wuxuu yahay kharashka guud. si fiican u fiiriya kharashka guud ee sanad kasta ku baxa dadkan ka qayb qaata ayaa wuxuu gaarayaa $30,900 Mareykanka ah, taasoo kulansanaysa lacagtii waxbarashada, halkii qofka uu deganaa, cuntadiisa iyo dharkii waxbarashada uu ku dhiganayay, iyo sidoo kale dhammaan exercise-yadii iyo waxyaalihii la xiriiray waxbarashada. taasi waa qodobka koowaad. qodobka labaadna wuxuu yahay 97% ardada la aqbalo ee barnaamijkan ka qayb qaadata ayaa waxay helaan taageero lacageed, kuwaasoo noqon karaa lagu yiri in lagu siiyo hab scholarship waxbarasho dhammaystiran ah oo wixii la siinayo leeyahay wakaasa sanadka waxba lagu weydiin mayo, ama in loo siiyo hab qayb ah in loo siiyo. qodobka saddexaad wuxuu yahay hantidan qofka lagu taageerayo waxay noqotaa mid la siinayo markii barnaamijka qofku loo cadeeyo inuu ku guuleystay, taasoo waliba loogu xadidayo iyadoo loo eegayo waliba habka ama xaaladda dhaqaale ee qofkani qoyska uu ka soo jeedo ay ku sugan yihiin. sidoo kale qodobka afraad wuxuu yahay in ay jirto heshiis lala galiyo qofkan barnaamijka ku guuleystay, taasoo kulansanaysa in ardaygu uu u hoggaansamo ka qayb qaadashada kobcinta dalalka Afrika iyadoo loo sii marayo shaqooyinka iyo mashaariicda la xiriira, taasoo laga yaabo inay qaato mararka qaarkood muddo dhan 10 sano kadib qofkani markuu barnaamijkan uu dhameeyo, taasoo noqonaysa baa lagu yiri hab uu gudayay in muxuu ahaay qayb ah oo barnaamijka qayb uu qabanayo ama minxooyin kale ay noqonayso. taasna waa maxay? waa habka la rabo qofkani inuu u fahmo barnaamijkan. intaa kadib waxaan rabnaa inaan fahanno why barnaamijkani muhiim ugu yahay, maxaan ku doortay, maxaanse barnaamijyada kale inuu iga fiican yahay ku dooranayaa. 3 qodob aan kusoo koobi karnaa. qodobka koowaad wuxuu yahay 1 dadka barnaamijkan ka baxa waxay heli doonaan sumcad run ahaantii aad u sarreysa oo ay ku yeelan doonaan markii dadkan ay isu bandhigayaan jaamacadaha caalamiga ah iyo waliba shabakadaha lagu soo saaro dadka ummadda hogaamiya. waa qodobka koowaad. labaad waxay tahay wuxuu barnaamijkani siinayaa qofkii ku guuleysta fursad run ahaantii heer sare ah, taasoo lagu dhisayo xirfadaha qofka uu caalamka kula xiriira shabakad alcaalamiya waxa la yiraahdo weeye uu networking-ka caalamka ah ama global network waxa la yiraahdo uu kula xiriirayo, gaar ahaan waliba marka la fiiriyo dhalinyarada hanka leh u diyaarka ah in ay shaqeeyaan isla markaana ay dadkoodii iyo qaaradoodii ay wax u qabtaan. qodobka saddexaad oo dambeeya wuxuu yahay barnaamijkan aad ku dooranaysid run ahaantii ku muujinaya inuu yahay barnaamij ka istaahila barnaamijyada kale inaad ka dooratid, inuu yahay barnaamij si xoogan run ahaantii loo agaasimay, munaasabna ku ah ardada intooda ugu badan, kuwaasoo leh helaya baa lagu leeyahay sanad ama 2 sano oo ka soo haray marxaladda dugsiga sare. bimacnaa waxaa weeye waxaad helaysaa inta aad jaamacadda tagin dugsiga sarena aad ka soo baxday inta u dhaxaysa inaad heshid 2 sano oo lagu dhisaya adiga
oo macluumaad iyo wixii aad u baahanayd aad helaysid kadibna markii jaamacadaha caalamka aad codsatid hadiiba aad jaamacadan barnaamijkan aad ku guuleysatay oo shahaadada aad wadatid in jaamacad kasta ay ku aqbali doonto inta kadib waxaan rabnaa inaan u gudubno habkii barnaamijka aad u apply gareyn lahayd ayaan guda galaynaa xagaag linkiga hoos aan idin soo dhignay ayaad ku dhufanaysaa muuqaalka hoostiisa linkiga ayaad ku dhufanaysaa kadibna halkan ayaad imanaysaa halkan ayuu ku keenayaa African Leadership Academy ayuu in sawirka noocaas uu ku soo baxo kadib hoos ayaan u degaynaa luqadda la doortay horta barnaamijku waa 2026 saad u jeedaan waana diploma programs luqadda uu ku baxayana waa Englishka inkastoo hoos aan ku arki doono in lagu siin doono optional language balse adaa muxuu ahay kala dooran doona inta kadib halkan waxaa lagu xusayaa qodobada ay ka mid ka yihiin applicationka habka loo aad u apply gareynaysid bimacnaa apply gareyn waxaan ka wadnaa habka aad u buuxinaysid oo su'aalaha lagu weydiiyo aad uga jawaabi doontid waxaa weeye marka formkan online-ka ah waxa aad ka helaysaa luqadaha kala ah luqadda Faransiiska iyo Boortaqiiska luqadda Faransiiska iyo Boortaqiiska sidoo kale waxaad ka helaysaa sidoo kale luqadda Carabiga iyadana waad ku apply gareyn kartaa iyadoo base ay tahay luqadii Englishka iyadoo markastaba base ay tahay oo horay lagu soo calaamadeeyay saadaraadid marka 4 luqadood ayaa barnaamijka ku apply gareyn kartaa waana fursad runtii aad u weyn sidoo kale waxaa lagu yiraahdaa hadii aad doontidna sidoo kale waxaad door bidi kartaa waxaad door bidi kartaa baa lagu yiri in habkan online-ka ah aad iska daysidba adoo sameynaya baa lagu yiri inaad xogta su'aalaha laga weydiiyay aad Word ku soo diyaarisid inaad ku soo diyaarisid Microsoft Word inaad ku soo diyaarisid adigoo u isticmaalo ku qoraya baa labada 4 luqadood ee aan soo kala sheegnay ee kala ahaa Faransiiska Allahumma musta'an Ingiriiska Boortaqiiska iyo luqadda Carabiga 4 luqadood kii aad rabtid muxuu ahay ku qoraya marka inta ku qortid kadibna waxaad ku soo diraysaa baa lagu yiri via email hab email oo toos ah ayaad ku soo diraysaa adoo ku soo diraya baa lagu yiri emailkan halkan ku qoran oo ah admissions@africanleadershipacademy.org intaas ayaad ku diri kartaa waa hadii habkan online-ka ah aad fahmi weydid habka loo apply gareeyo ama loo buuxiyo intaas kadib shuruudahan ku laalaaban mayno balse waxaan ka xusayaa kaliya tanaan ka xusayaa waxay ka dhigan tahay in da'daadu 19 sano aysan ka weynin markii barnaamijkan aad apply gareynaysid bimacnaa waa maxay 2006 ka hor hadii aad dhalatay barnaamijkan kama qayb qaadan kartid saadaradeed 2006 iyo wixii ka dambeeyay waliba bisha September wixii ka dambeeyay qofkii dhashay ayaa ka qayb qaadan kara saadaradeed 2005 2004 2003 2002 ilaa wixii ka horeeyay oo dhan hadii aad dhalatay barnaamijkan kuma quseeyo ee ha isku daalinin inta kadib sharaxaadan kale si galgali mayno waayo adaa si akhrisan doona balse waxaan toos u gudbaynaa oo hoos markaan u jiidno formkii ama su'aalihii aad ka jawaabaysay kow marka uu horeysa waxaad gelinaysaa baa lagu yiri family name oo surname waa aabihii magaciisa baad gelinaysaa aabaha magaciisa ayaa halkan gelinaysaa halkana waa maxay magacaagii koowaad waa magacaagii koowaad oo halkan ah iyo halkan oo ah magacaagii labaad oo magacii aabihii ah inta kadib waad sii soconaysaa oo su'aasha saddexaad ah waxaad gelinaysaa bishii aad dhalatay ta afraadna waa maxay waa Allahumma musta'an date-kii aad dhalatay oo laga sii doortay maxay waa bishii baad muxuu ahaayay ka dooranaysaa bishii ay ahayd adaa yaqaana kadibna waa maxay su'aashan kala tagaysaa waxaad dooranaysaa maalintii aad ka dhalatay ma 20 bay ahayd ma 5 bay ahayd ma 1 bay ahayd tan u dambeysana waa maxay waa sanadkii intii baa lagu kala qaaday iyadii baad gelinaysaa inta kadib xogta aad gelinaysidna fadlan ka fiirso waa in baasaboorka lagu weydiin doono waad arki doontaa baasaboorkaaga xogta ku qoran iyo xogta aad gelinaysid waa inay is yeelato haddii isdaba marto waxaa lagu arkayaa qof waxa uu sheegaya ama xogtan uu gudbisanayo been ay ka tahay inta kadib su'aasha shanaad markaan u nimaadno waxaad gelinaysaa teeda waxaad gelinaysaa dhowr waxyaalood midii aad haysatid oo waa maxay waxaa lagu yiri upload gare koobiga birth certificate-kii oo warqadii dhalashadaada ama ID haddii aad haysatid gaar ku ah ama baasaboorkaaga marka saddexdaas kii aad haysatid
ayaad gashanaysaa. taas marka meesha waxay ka saaraysaa inaan lagu khasbaynin in baasaboorkaagii aad gashatid, inkastoo laga yaabo hadhow dib in lagaa weydiiyo, laakiin halkan waa lagu fududeeyay. waxaad samayn kartaa warqadii dhalashadaada haddaad haysatid waad gelin kartaa, allahumma mustacaan. haddii ID aad haysatidna waad gashan kartaa. ID-gaas muxuu noqon karaa? waa ID way badan yihiin, kuwii identity-gii dalkaaga nationalka ahaa uu noqon karaa. wuxuu kaloo noqon karaa, waan jeclahay inkastoo aan hubin, ID-gii shaqaalaha aad ku ahayd hay-ad ama shirkad iyo wixii lamid ah, ama ardaynimo oo cadaynayay, ama baasaboorkaagii. kadib halkan waxaad leedahay upload, idiin tilmaamay waad garanaysaa, klig baa halkan siinaysaa, kadibna waa soo upload garanaysaa meeshii uu kaga jiray computerkaaga, mobilkaaga, ID-ga aad rabtay inaad soo gelisid. intaa kadib waxaa loo gudbay adigu ma rag baa tahay mise dumar, kii aad tahay aad dooranaysaa. haddaad dumar tahay dumar baad dooranaysaa, haddii rag aad tahayna rag baad dooranaysaa. intaa kadib nationality-ga waa maxay? waa dalkaad u dhalatay. dalkaad u dhalatay baasaboorkii aad sheegatay uu ku qornaa ayaad gashanaysaa. tusaale marka haddii Soomaaliya oo kale ay tahay, SO baad taabanaysaa, kadibna waatana Soomaaliya kuu soo baxday, waad ku dhufanaysaa. okay, intaa kadib waad sii soconaysaa. su-aasha toddobaad waxay tahay haddii dal kale aad baasaboorkiisa haysatid, waa lagu weydiiyey haa iyo maya. haddaad haysatid yes baad leedahay, haddaad haysanna mayaad leedahay. marka tii kugu habboon ayaad dooranaysaa. sidoo kale waa maxay? dalal kala duwan miyaad u dhalatay baa laga dhigi jirta marka, oo dalalkii aad sheegat aad tiri yes-tii baad gashanaysaa, ama Kenyaatiba, ama Ethiopianba, ama Maraykanba, ama Ingiriisba, ama wixii lamid ahba baad ka dooranaysaa. intaa markaan kaga gudubno, tusaale Afghanistan baad tiri, waan kasii gudbaynaa. waxaa lagu weydiiyey dalka hadda aad degan tahay, dalka hadda aad ku nooshahay, dalkii baad dooranaysaa. marka tusaale ahaan Qatar oo kale baan niri, dalka Qatar oo kale tiri waan ku noolahay, waad dooran kartaa. haddii aad UK ku nooshahay, Ingiriis oo kale waad dooran kartaa. waxaa lagu yidhi sidoo kale baasaboor shaqaynaya ma haysataa? haa waad leedahay ama maya. tii kugu habboon baad isticmaalaysaa. yes baan haddaanu iri, adu laakiin adaa garanaya. intaa kadib primary emailkaagii baad gelinaysaa, adresskii waad garanaysaa. adda waxaa loo raaciyay waa inaad iska saxdaa. marka magacii adiga aad garanaysay unbaad gashanaysaa. tusaale ahaan Saadiq oo kale aan niri, at baad leedahay, wixii gmailkaaga uu ahaa baad gashanaysaa. kadibna aad gmail baad leedahay, nabaday. saasaad muxuu ahaay ku buuxinaysaa iyadana. intaa kadib haddii uu jiro secondary waad gelinaysaa address oo mid kale ah waad gelinaysaa. kadib halkana mobilkii baad gelinaysaa, halkana waxaad gelinaysaa telefoonka. marka wuxuu ka leeyahay mobile phone-ki waa kii gacanta. marka bay sii kala qaadaan keliya, laba lambar oo aad kala leedahay ayaad gashan kartaa. calankan meesha kaga muuqda waa dalka lagu qaban doono, saasaad muxuu ahaayey lagugu muujiyey. marka just waa example, laakiin adiga dalkaaga saxda ah ayaad muxuu ahaayey gashanaysaa. intaa kadib su-aalihii way sii socdaan. your permanent physical address waa meesha saxda aad ku nooshay degan tahay hadda ayaad muxuu ahaayey waaqa oo lagu sii sharxay. waxaa lagu where you reside with your parents ama guardian. dadka aad la nooshahay ama waalidiinta nooc waxay noqon karaan dad aan ku dhalin oo aad la nooshahay, ama dadkii ku dhalay bay noqon karaan, whatever nooc ay doonaanba ha ahaadaan. dadka aad la nooshahay adresska ay ku nool yihiin hadda geli. adresskaas tusaale halkan wuxuu soo saaray Kuyole Spine Road oo kale. hadda kahor barnaamij aan ablay gareynayay ayaan geliyey. marka adigana kaaga saxda adaa galnay. marka just example haddaan ku siiyo, markaa saa u gelisid wuxuu kuu soo saarayaa dalkii uu ku yaalay, Nairobi uu ku yaalaa, Kenya ku sii yaalaa. waa tusaale. adaa marka waxaa lagaa rabaa meeshii aad dooran lahayd. intaa kadib waxaa lagu yidhi maxaa cadaynaya baa lagu yidhi waxa ugu habboon ee cadaynaya meesha aad degan tahay ama familkaagu ay degan yihiin maxay tahay. halkan aad ka kala dooranaysaa, adaa yaqaana waxa ku habboon. kadibna waan kasii soconaynaa. intaa kadib family information-kii baa la galay. family information-kii waa macluumaadkii la xiriiray qoyskiina la xiriiray. kadibna halkanaad muxuu ahay gelinaysaa. markaan idhaahno waa maxay dadka aad la nooshay, ma ehelkiiba, ma dad kala, ma waalidiintaadiiba, ma wax kala, adaa yaqaana. marka waa dooranaysaa iyadana tii kugu habboon. intaa kadib waxaa lagu yidhi luuqadda asaasiga ah ee aad ku hadashid ee meesha aad joogtay adiga ahaan dalkaagu waa maxay. ma dowladahana waad kala dooranaysaa. marka ma carabiba, Portugiisba, ma kuwiiba. marka adoo afartii luuqadood aan ka tegayn, Portugiiska, Faransiiska, Ingiriiska iyo Carabiga tii ay tahay ayaa dooranaysaa.
adoo waliba dee ay ku furan tahay inaad Soomaaliya tiraahdid maadaama Soomaali aad tahay laakiin maadaama barnaamijku 4 luqadood uu ku xadiday 4 luqadood mid kamid ah inaad dooratid ayaan kugula talinayaa intaas kadib haddii ay jiraan baa luqado kale oo aad ku hadashay haddii jiraan ma jiraan haa iyo maya haddii jiraan haa waad leedahay haddii jirina maya aad leedahay halkan oo kale just hadda waxaan dooranaynaa tusaale ahaan Arabic oo kale aan dooranaynaa Arabicii ayaa dooratay okay sii soco waxaa lagu yiri secondary language taadu maxay tahay waad sheeganaysaa ayadana just waxaan leenahay kaba soo qaad English inay tahay ama Portuguese ama wax kale kadibna waad sheegaysaa intaan markaan sii soconno halkan waxaa lagu weydiiyey dadkii familka ku ahaa magacyadoodii ama adiga mas'uulka ka ahaa waad gelinaysaa marka halkana sidoo kale magacii koowaad iyo magacii labaad saasaad ku wadaysaa xogta noocaas ahna waad iska ilaalinaysaa kadib waxaa lagu weydiiyey qofkan aad tiri waa waalid buu u yahay ama mas'uul buu ugu yahay xiriirka in ka dhaxeeya muxuu idin ma aabbu ku yahay ma hooye ku tahay ma awow ku yahay ma ayay ku tahay adaa sheegaysa ma eeday ku tahay ma ade ilaa walaal iyo wixii la mid ah marka ku yahay ayaa dooranaysaa tusaale marka waxaan iri aabbo u yahay kaba soo qaad adaa marka sheegan doona kadibna waxaad sheegi doontaa baa lagu shaqada qofkan aad tiri waalid buu u yahay ma walaal baan nahay waan la joogaa waxa uu ka shaqeeyo kadibna shaqadii nooc ay ahayd ayaad gashanaysaa ma businessman ba ma teacher ba ma Allah musta'an ma lecturer ba ma policeman ba ma ayankan wuxuu yahay ayaad gashanaysaa halkaas intaa kadib waxaa lagu weydiiyey hadda shaqada rasmiga ah ee qofkan uu ka shaqeeyo ayaad gelinaysaa hadday jirto nooceedii magaceedii baa halkan gelinaysaa waad ka sii soconaysaa marka waa su'aasha 8aad aan isla soconno intaa kadib waxaa lagu yiri levelka aqooneed ee uu dhameeyay qofkan waalidka ku ah ama mas'uulka ka ah muxuu yahay ma no formal education ba ma primary school buu ka baxay ma secondary buu ka baxay ma vocational trade school certificate oo degree buu qaatay ma undergraduate degree buu qaatay loo yaqaan bachelorka iyo wixii la mid ah marka ta ku haboon ayaad gelinaysaa just an waxaan iri secondary laakiin adiga ta kugu haboon adaa dooran doona inta kadib addresska qofka emailkiisa primary-ga ah ayaad gelinaysaa parent-ga gelinaysaa sorry kadibna emailkii baad gelinaysaa kana waa maxay sidoo kale waad gelinaysaa telefonkii baad gelinaysaa saasaad ku sii soconaysaa inta kadib waxaa lagu weydiiyey dadkan muxuu ahay mas'uulka ka ah ama waalidka ku ahay ma waxay ku nool yihiin isla addresskii aad hore u soo sheegtay mii degan yihiin mise waa mid ka duwan waa kii physicalka ahaa diiradda si fiican ugu hay halkaas mise waa mid kale haddii marka isku meel aad ku nooshihiin dee waad sheegaysaa haddii aad kala meel joogtaanna labada kale address ayaad gelinaysaa sidoo kale waxaa laga gaadhin hadduu jiro labaad sheeg asaguna halkan aad gelinaysaa magaciisii koowaad magaciisii Allahumma musta'an xiriirkii ka dhaxeeyay shaqadiisii wixii baa taxaysaa asagana wixii baa taxaysaa sii soco waxaan dhan wada ka jawaabi doonaa waa isla emailkii iyo xogtii hadda aan sheegaynay waxa waqti dheeraad ah ku sii lumin mayno intaa kadib waad sii soconaysaa Allahumma musta'an su'aashan ayaa waxaa lagu yiri sidoo kale halkan markaan maraysid ayadana waxaa laga weydiiyey markaan kuwaas kale ka soo gudubno inta kadib waxaa lagu weydiiyey su'aasha 22aad waa su'aashii lagu ka boodweeyay haddii aad jawaabteeda haysid walaalo ma leedahay baa lagu yiri haa mise maya haddii haa tahay haa baad leedahay tahay mayana mayaad leedahay haddii marka su'aashan haa aad tiraahdo waxaanay kugu sii furaysaa haddii maya aad tirahdidna way kaa xiraysaa kolomyadan way kaa xiraysaa soo ma jeedid marka aday kugu xiran tahay tusaale waxaa tiri haa oo kala tiri markaan eegno waxaa lagu yiri imisa walaal ayaa kula dhashay oo adiga ka weyn baa lagu yiri tiradii baad sheegaysaa ma 6 ba ma 9 ba ma 4 ba ma 5 ba ma 2 ma waxay yihiin ba waad dooranaysaa waxaa lagu yiri marka inteeba marka sidoo kale hadana ka yar adiga marka sheegtay kuwani waa kuwa ka weynaay meeqa ka yar intii ka yareed ayaa iyagana sheegaysaa waa tiradii kaliya sidoo kale waxaa lagu yiri inteeba walaal kula ah oo aad family member applier attach alla ayaad ku soo attach garaysay baa lagu yiri ku soo xustay barnaamijka markii aad apply garinaysay imisay ahaa imisa ku soo apply garaysay marka ma my siblings baa lagu yiri applied to alla hadda way muxuu apply gareeyeen oo inay ka but did not attend laakiin waa lagu apply gareeyay laakiin kama aysan qayb qaadanin ama walaaladay
barnaamijka way ka qayb qaateen marka haddii walaalada noocaas ay yihiin xogta aad u gelinaysa adaa markastaba ka fikiraye iyadana saasay ku weydiin doonaan intaa kadib waxaa lagu yidhi inta walaalada kula ah ee family memberkiina isla qoyskiina ah magacooda sheeg baa lagu yidhi magacyadii baa taxaysaa marka somehow waxoogaa waxaa laga moodaa communicated inay ka dhigeen laakiin waa kugu qasab sababtoo ah required baa ku qoran waa lagaa rabaa kama boodi kartid bay ka dhigan tahay haddii kale foomkaa dhan inaad dhammaystirtid wuu kaa diidayaa marka intaa ka gudubnay waa qaybtii labaad ayaa halkaa uga gudubnay qaybta saddexaad markaan u gudubno waxaa lagu weydiiyey referral information waxaa lagu weydiiyey macluumaadka aad gudbinaysid waxaa lagu yidhi marka fadlan si fiican iska eeg soo gudbi baa lagu yidhi macluumaad kuwaasoo aad ka maqashay African Leadership Academy meesha aad ka maqashay macluumaadkan markaad intaad ablay gareen ka hor meesha macluumaadkan uu kaa soo gaaray ayaad sheegaysaa xageed ka soo ogaatay xageed ka soo maqashay saadaradeed haddii social media uu yahay waad sheegaysaa haddii meel kale uu yahay wakaasa waxaan kuula talin lahaa marka barnaamijka maadaama aan ku soo gudbiyey adar intaad tiraahdid kadibna inaad social media ka soo gelisid si laftigayga taageero ay ugu noqoto in barnaamijyadan aan soo gudbiyo ay muxuu ahaayay iigu noqoto inaan hay qof ka shaqeeya haddii kalena social media umaad dhihi kartaa laakiin taasaan ku dhihi lahaa okay intaa kadib su-aasha labaad ee qaybtan saddexaad waxaa lagu yidhi ma jirtaa baa lagu yidhi qof gaar ah ama hay-ad gaar ah oo aad jeclaan lahayd in ay muxuu ahaay aad noo recognize garaysa inaad noo sheegto adoo noo sheegaya waxa ku saabsan ala oo ah African Leadership Academy adoo usoo qaadanaya tusaale ahaan saaxiib Allahu musta'aan arday teacher adoo usoo qaadanaya tusaale ahaan adoo usoo qaadanaya bal wax nooga sheeg haddii si kale aan noo dhigno waxaan dhihi karnaa waxaa laga wadaa ma jiraa qof ama hay-ad aad si gaara u jeceshahay inaad oga sheekayso ala inaad oga waranto oo qofka macluumaadkiisa inta soo qaatid adoo qofkii ka hadlaya inaad annaga nooga waranto oo ah ala oo ah African Leadership Academy marka wuxuu noqon karaa saaxiib arday iyo macallin buu noqon karaa marka halkanaad oga shaqeynaysaa waxaad leedahay haabaad leedahay wuu jiraa qofkaasi ama mayaad leedahay kii ku habboon kadib haddaa yes tiraahdid informationkiisii ayaa halkan soo gelinaysaa haddii kalena mayaad leedahay adaa ikhtiyaarka iska leh laakiin waa qasab bay kugu tahay su-aasha inaad ka jawaabtid intaa kadib waxaa lagu yidhi ma ka qayb qaadatay baa lagu yidhi in other African Leadership Academy or partner organization program in past barnaamij Africa laga leeyahay oo leadershipka la xiriira akademiyadaas ah ama xiriir la leh ama bahwadaag la ah hay'ad bahwadaag la ah oo barnaamijyada noocan ka shaqeysa horay ma oga muxuu qayb qaadatay haddii haa tahayna haa baad leedahay hadday maya tahayna mayaad leedahay intaa kadib marka halkaa ka gudubtid waxaad u sii gudbaysaa su-aasha afraad oo ah hadda ka hor barnaamijkan African Leadership Academy horay hadda ka hor ma u apply gareysay bimacnaa barnaamijkaas ma iska diiwaan gelisayo ma u tartantay hadday tahay yes baad leedahay hadday maya tahayna no baad leedahay sii soco su-aasha afraad qaybteeda koowaad waxaa lagu yidhi academic information baa lagu weydiinayaa waxaa lagu yidhi waxbarashada hadda heerkaaga waxbarasho hadda maxay tahay marka haddii ay tahay secondarygiina hadda dhigatidna enroll baa leedahay kanaad dooranaysaa haddaad dhammaysayna kanaad dooranaysaa haddii aad ka dhammaysay muxuu ahaaye dugsigii sare islamarkaana jaamacad hadda aad bilowdayna waad sheegaysaa haddii kale oo wax kale oo ka duwan aad haysidna adar baad dooranaysaa kadibna waad gelinaysaa okay intaa kadib waan sii soconaynaa waxaa lagu yidhi waxaad sheegtaa iskuulka aad dhigan jirtay haddii baa lagu yidhi haddii aan halkan liiska lagu soo darin saa daraaddeed fadlan waxaa doorataa baa lagu yidhi adaa dooro kadibna magacii iskuulkaaga geli haddii halkan uusan ku jirin weeye iskuulkan lagu soo sheegay hadduusan ka mid ka ahayn ada dooro kadibna iskuulkiina soo geli okay waan kasii soconaynaa su-aasha saddexaad waxay tahay secondary-ga aad ka baxday ama aad dhigan jirtay noocee buu ahaa
nooca uu ahaa ayaad sheegaysaa ma public buu ahaa government oo dowladda muxuu ahaayay iskuul dowladdu ay leedahay buu ahaa mise private buu ahaayo iskuulada gaarka ah loo leeyahay buu ahaa tusaale ahaan markaan Soomaaliya kale u soo qaadana gaar ahaan gaalkacyo oo kale iskuulka Cumar Samator oo kale dowladdu ka diiwaan gashan yahay public secondary Boosaaso oo kale wuxuu ka diiwaan gashan yahay dowladda Gambool oo kale Garowe sidoo kale dowladda way laakiin iskuulada private ka ah sida Xaaji Cali Biixi oo kale gaalkacyo ku yaala Allahumma musta'an Nawaawi oo kale oo ku yaala meesha leedahay Boosaaso iyo Garowe Alwaaxa secondary school iskuulada noocaas oo kale ah muxuu ahaayay Nugaal secondary school asna Garowe ku yaala oo kale waa wada private kuwaasi marka haddii public yahay iskuulkii public ahaa u dooro haddii uu yahay private kii dooro adaa marka yaqaan iskuulka aad dhiganaysid ama aad ka baxday waxa lagu yiri sidoo kale luqadda loo isticmaalo iskuulka aad dhigatid waa noocee ma Carabi ba ma English ba ma Amharic ba ma Faransiis ba adaa marka dooranaya adaa marka kala dooranaya hagaag waan sii soconaynaa sidoo kale waxa lagu yiri inta kadib goormaad filaysaa in iskuulkan waa haddii aad dhigatid inaad ka baxday marka taariikhda aad dhameyn doontid ayaad sheegaysaa halkaas ay saasi ku sii soconaysaa su'aaluhu ilaa laga tago meesha ugu dambaysa halkan reportkii iskuulkaaga ayaad soo gelinaysaa somehow waxaad u baahan tahay cid ku caawisa marka waxaad samaysaa markaad soo dhiraandhirisido reportka aad soo qortay iskuulka ku saabsan goortaad ku soo biirtay iskuulkiina noocu uu yahay xogaas kooban baad ka soo waramaysaa kadibna waxaad ka dhigi doontaa PDF ama JPG ama JPEG ama PNG baad ka dhigi doontaa isla markaana waxaad kaloo ka samayn kartaa baa lagu yiri 10 mo files oo kala duwan ayaad soo gelin kartaa adoo waxaan ka sameeyay si marka xogaa reportkaagu uu yara faahfaahsanaado marka halkan aan si fiican ku dhisaanay laba kala mid weeye midkani waa 2023 reportkii ahaa waa xaaladii iskuulkiina uu ku sugnaa iyadu saadahayd tan waa maxay waa sanadkii 2024 reportka la xiriira waa iskuulkiina sidoo ahaa adu waxyaalaha aad ka qabatay iyo wixii la mid ka ahaa tan waa maxay waa most recent waa hadda sanadkan lagu jiro iskuulkiina waa hadii aad dhigatid report ku saabsan ayaad qoraysaa oo kooban asaguna isku sii dheeraynin kulligoodna waxaad ka dhigi doontaa ima PNG ama JPEG ama JPG ama PDF marka PDF baa ugu kooban haddaan sii soconno su'aasha kale waxay leedahay waa qaybta 6aad waa section 6 essays waa qaybtii qoraalada ama qormooyinka qaybta koowaad waxaa lagu yiri horta limitka lagu sheegay baa lagu yiri fadlan ha ka gudbin ha ya dhaafin do not exceed baa lagu yiri the word limit is tirooyinka xarfo lagu xadiday fadlan ha ka badinin baa lagu yiri ha dhaafin haddii kale shuruuda ku qaban doonta inta kadib baa lagu yiri lagama rabo baa lagu yiri inaad gaadhid limitkii lagu sheegay qasab kugu ma bimacna waxa loo tusaale ahaan 2000 oo eray waa inaad qortaa marka ha isku khasbin inaad 2000 eray aad qortid ka yar baad qori kartaa laakiin maxaad ku qasban tahay inaad 2000 aad dhaafin sidoo kale waxa lagu yiri there is no single correct answer to any of these questions sidoo kale waxa lagu yiri ma jirto hal su'aal oo waa maxay la sixi doono oo kamid ah dhammaan su'aalahan bimacna waa maxay quality-ga adiga waxyaalaha aad ka khaladay su'aalahaaga ma noqon doonto wax lagu saxo adiga marka waa inaad ka taxadartaa saddex qodob aad uga fiirso inta kadib su'aashana lagu weydiiyay oo maxay tahay waxaad ka warantaa baa lagu yiri waqtigii ama goortii cadaynaysa baa lagu yiri in ay u baahan tahay bulshadu isla markaana ay u baahan tahay in ficil la qaado waxaad sheegtaa baa lagu yiri goorma bulshadu ay ka turjuntaa inay tahay mid u baahan in ficil la qaado lagu bedelayo taas marka waxay noqon kartaa baa lagu yiri this can be baa lagu yiri bulshadaada waxay noqon kartaa qoyskiina iskuulkiina muxuu ahaay xaafadiina ama magaaladiina ama bulshadiinaba ama organization may noqon kartaa ama workplace meesha aad ka shaqaysid ama religious community waxay noqon kartaa bulsho diimeed bay noqon kartaa ama baa lagu yiri wax ka baxsan taasoo la xiriirta baa lagu yiri classroom task waxaasoo dhan mid kamid ay noqon kartaa goormay bulshada noocaas u baahan tahay baa lagu yiri ama lagu qeexi karaa inay tahay bulsho u baahan in tilaabo laga qaado oo wax loo qabto ama wax lagu sameeyo waxay noqon kartaa baa lagu yiri marka saadaraad marka inta aad sheegtid baa lagu yiri waxa lagu weydiiyay hadana
what need did you identify baahidee baad ku qeexi lahayd bulshadaasi inay u baahan tahay sidoo kale why was addressing this need important maxaad ku qeexaysaa baa lagu yidhi in tilaabadani aad sheegtay inay muhiim tahay xaalada noocaas markaad qeexisid baa lagu yidhi fadlan minimumka waa inuu noqdo baa lagu yidhi 100 eray waa inuu noqdo ha ka badinin marka soo koob kadibna halkaa oga hadal intaa kadib talabaad waa maxay waa tan iyaduna waa maxay waad ka hadlaysaa 150 eray waa inaysan dhaafin iyaduna sidoo kale sii soco su-aashan kalena saanay ahaanaysaa almuhim marka su-aalahan ayaad si fiican u wada eegi doontaa waa soconaynaa kadib halkan waxaa lagaa weydiiyey haddii ay jirto shaqo hore aad u qabatay soo upload garee baa ka soo hadal baa yidhahdoo dokumentiyadaas kala duwan midkaa doontid ka dhigi kara sidoo kale haddii ay jirto shaqo adu aad muxuu ahay si gaara u dooratay oo deetan unbay ku lifaaqan tahay iyadan haddii jirto halkan soo geli intaa kadib waxaa lagu yidhi shaqadan aad sheegtay maxaad u dooratay baa lagu yidhi shaqada noocan ah sababtaad u dooratay iyadana ka soo hadal waa inaysan 200 oo eray waa inaysan dhaafin sii soco sidoo kale halkan waxaa lagu weydiiyey shaqadii aad dooratay baa lagu yidhi shaqadii aad dooratay sidee baad u dhistay haddii aadan dhisin sidee baad u dhisi doontaa adoo ku salaynaya maxay isla shaqadii aad dooratay tan halkaasaan oga gudbaynaa additional information baa jirta additional informationkana waa maxay waa macluumaadka dheeraadka ah iyaduna marka waxay noqon kartaa please baa listed two most important awareness waxaa jirtaa fadlan waxaa sheegtaa baa lagu yidhi oo soo liis garaysaa abaalmarinadii ugu muhiimsanaa ee adiga lagu siiyey laba ka mid ah labadii ugu muhiimsanaa soo qaad ayda waxay noqon kartaa baa lagu yidhi academic qaybta waxbarashaday noqon kartaa ama waxay noqon kartaa wax manhajka tacliimiga ah ka baxsan bay noqon kartaa taasoo aad u dooratay baa lagu yidhi inaad ku guulaysatay markaasaa daraaddeed ka soo hadal adoo 250 eray uga soo hadlaya kadibna maxaa samaysaa baa lagu yidhi you may attach documents as proof waxyaalaha aad dokumentiga aad markaad kasoo warantid dokumentiyadeedii halkan keen taasoo u noqon doonta baa lagu yidhi inay ka maqhraati kici doonto ama marag ay ka noqon doonto ama caddayn u noqon doonto waxaan aad sheeganayso sidoo kale waxaa lagu yidhi fadlan baa lagu yidhi iska hubi informationka ay kulansanayso sanadka aad abaalmarintaas qaadatay hay-addii ku siisay iyo wixii la midka ahaa fadlan iska hubi sidoo kale waxaa lagu yidhi allahuma mustacaan sii soco halkan waxaa lagu yidhi markaan ku yara laabano uploading document is not required baa lagu yidhi halkan markaan ka hadlayna halkan in halkan kusoo upload garayso looma baahna sharaxaadii waxaan aad soo gudbisay ayaad halkan oga waramaysaa laakiin caddayntii halkan aad kusoo upload garaynaysaa halkan aad kusoo dejinaysaa xagaag waan sii soconaynaa intaa kadib halkana su-aalahan aad ka jawaabi doontaa covid-19 iyo waxaasay la xiriiraan adaa akhrin doona insha allahu tacaala xogaa waqtiga ku lumin mayna anagoo waqtiga soo koobayna intaa kadib waxaana lagu yidhi su-aashan hadda aan highlight ka saarnay waa optional bay u muuqataa maadaama optionalkan lagaga qoray bay u muuqataa marka however wuxuun adigu iska soo geli yaro kooban oo aad isku sii dheeraynin 250 erayna ha dhaafin tan laftigeedana waa maxay waa optional baa lagu yidhi iyadana kasii soco haddii ay jiraan waxyaalo kaloo aad ku guulaysatay ama aad si agaasiman u samaysay hadday suurtagal tahay baa lagu yidhi marka iyaduna waa optional oo qasab kuguma aha sidoo kale markaan sii soconna qaybta u dambaysa waa certificationkii iyo daatadii iyo wixii la midka ahaa marka xaggan waxaad akhrin doontaa inaa waxaan maqhraati ka tahay run inay tahay barnaamijkan diyaar aad u tahay xogta aad soo gudbisatay oo dhan wax run ah inay tahay iyo wixii la mid ah marka waa iska hubinaysaa kadibna confirm baad dhahaysaayo waxaan ku dhaaranayaa baad leedahay waxaan sheegay oo dhan inay dhab yihiin bay ka dhigan tahay marka been iska ilaali maadaama waxa aad ku dhaaranaysid ay tahay waxaan maqhraatiga ay ka tahay oo sidii wallaahi billaahi tallaahi oo kale ay u dhiganto kadibna waa maxay submit ayaad leedahay sidaas ayaadna barnaamijkii ku dhammaysay intaa kadib markaa intaa samaysid barnaamijkii wuu kaa dhammaaday halkaas ayaadna waxaad ka sugi doontaa in aad ku guulaysatid iyo in kale barnaamijkii marka haddaa barnaamijkan ku guulaysatid run ahaantii waa fursad aad u weyn oo lagu yidhi 2 sano oo noloshaadii iyo waxbarashadaadii laguu qabo
kadibna dal lagu geeyey waxbarashadii aad ugu wanaagsan markaad eegtid Africa inkastoo la dhihi karo waa laga horeeyaa laakiin de minxa ah ama scholarship runtii waa fursad dahabi oo u baahan in laga faa'iideysto sadaraadeed haddii channelkani uu kugu cusub yahay fadlan subscribe haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii su'aal ah qabtid haddii jirto weeye dhinaca hoose ayaad nagula soo wadaagi kartaa sidoo kale akhyaarta kale barnaamijyadan u baahan ee aad garanaysid gaarsii iyaguna si ay uga faa'iideystaan aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta la wadaagi doonaa 10 dowladood oo haddii aad wax ku baratid ku damaanad qaadaya dalkaas inaad sii joogtid waxaan filayaa in arrinkani ay si gaar ah muhiim ugu tahay ardada Soomaaliyeed ee la daala dhacay run ahaantii marka ay dalka wax ku bartaan Soomaaliya weeye in ay dhacdo inaysan shaqo helin haddaba 10 dowladood ee aan la wadaagi doono waxay muhiim u tahay dadka noocaas ahi in ay isla marka ay waxbarashada dhameeyaan inay laba mid heli doonaan midkood midda koowaad inay fursad u heli doonaan dalkaas inay ka shaqaystaan oo iyagu wixii ay yaqaaneen ay shaqaale ku noqdaan isla markaana mushaar ay ku helaan ama haddii qofku yahay qof innovation leh hal abuur leh fikrado leh mashaariic dalkaas uu ka bilaabi doono taasoo meesha ka saaraysa sida dalka aan ku naqaanay caalamka marka uu ardaygu dalkaas wax ku barto isla markaana dalkaas uu soo dhalan in laga soo celiyo kulanti wanaagsan magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed haddii booqashadaadii koowaad ee bartan ay tahay fadlan nagu soo bir haddaba inta aynan 10 dowladood aynan u gudbin ayaa heerka shaqo la'aan ee ardayda jaamacadaha ka baxa gaar ahaan dowladaha Carabtu ay gaadhay 28% iyadoo la sheegay shaqo abuurka dowladaha Carabtu inay u baahan yihiin 30 sano ee soo socota in ka badan 60 milyan oo shaqo taasoo ku muujinaysa heerka shaqo la'aanta ee run ahaantii la kowsatay ama ku habsatay ardayda Carabeed oo marka Afrika aan ka reebno hase yeeshee taa beddelkeeda ayaa celceliska shaqaalaysiinta ardayda cusub ee jaamacadaha dowladaha reer Yurub ka baxa ee da'doodu ay u dhaxayso 20 sano ilaa 40 sano ayaa tiradoodu ay dhaafaysaa 83.5% marka loo eego xafiiska tirakoobka midowga Yurub warbixin uu soo saaray sanadkii 2023 dhinaca kale tirada la diiwaan geliyay ee ardayda dhameysatay tacliinta sare ee dalalka midowga Yurub ayaa ah kuwo celcelis ahaan kuwa dunida ugu badan ee ardayda la shaqaaleysiyo bimacnaa ardayda markii ay jaamacadaha ka baxaan ardayda dunida ugu badan ee la shaqaaleysiyo waa ardayda dowladaha reer Yurub u dhashay iyagoo guud ahaan ardaydaasi noqday dunida kuwa looga ilaalin badan yahay inay shaqo la'aantu ku dhacdo marka loo eego dadka iyaga ahaan mustawahooda tacliimiga ama heerkooda waxbarasho ka hooseeya halka isla sanadkaas ardayda cusub ee waxbarashada dhameysatay ee la shaqaaleysiiyay ma aha kuwa shaqo la'aanta ay ku dhacday ma aha waa kuwa shaqada la geeyay si rasmi ah loo geeyay in tiradoodu ay dhaaftay 90% gaar ahaan waliba dowladahan soo socda ee kala ah Ireland, Australia, Belgium, Sweden, Slovakia, Poland, Jarmalka, Latvia, Bulgaria, Hungary, Holland, Malta iyo Estonia dowladahaasi ardada dalkooda ee waxbaratay ayaa isla markii waxbarashada ay dhameeyeen ayaa 90% ay gaadhay tirada arday ee la shaqaaleysiiyay taana waxaad ku fahmaysaa heerka ay gaadhay sida ardadaas ay run ahaantii u yihiin kuwa dalka markii ay waxbarteen dib ugu soo celiyay isla markaana iyagoo noloshoodii maareeyay haddaba kala duwanaanshiyahaas walaalayaal aan soo xusnay awgood ayaa arday badan oo dalalka Afrika iyo Carabaha ka soo jeeda ay u doonayaan inay waxbarashadooda ku dhameystaan dowladaha siinaya fursado shaqo oo dhab ah si ay dalkaas ugu noolaadaan marka ay waxbarashadooda dhameeyaan kadib sidaa darteed ayaa waxaan rabaa inaan 10 dowladood idinku soo bandhigo si ardayda Soomaaliyeed ay ka guuxi jirtay inay dalalkaas aadaan ama ku fikiri jiray inay raadiyaan dal ay wax ku bartaan kadibna ay sii joogaan ay uga faa'iideystaan haddaba dowladda ugu horeysa waxay tahay waa dalka Canada muddada joogitaanka ee dalka Canada waa 3 sano balse shartiga barnaamijka waxbarasho ee la rabo inuu dhigto qofkaasi si uu u sii joogo dalkaas ayaa waxay tahay waqtiga ugu yar 8 bilood 8 bilood meesha aad wax ku baranaysid jaamacad ha ahaato ama ha ahaato macahad ha ahaado ama ha ahaado goob kale waa inay tahay goobta waxbarasho mid dalka Canada uu aqoonsan yahay taasi waa maxay waa habka dalka Canada
ay kugu suurtagelayso inaad sii joogtid waa haddii aad tahay qof arday wax bartay. markaad eegtid waxaad moodaa arrin aad u fudud inuu yahay waa 8 bilood. taasi waa maxay? waa dhinaca fursadda ee waxbarasho ee haddii aad wax baratid dalka Canada aad ku joogi kartid. dhinaca kale markaan eegno fursadaha shaqo ee dalka Canada laga helo ayaa wuxuu yahay in si fudud ay u furan tahay qofka dalka Canada jooga inuu fursad u helo jinsiyad uu doona ha yeesho. midda labaad waxay tahay qofka waxaa lagu doortaa markii la shaqaalaysiinayo hadba qofku waxa uu yaqaano, iyadoo taasi ay ku lamaansan tahay barnaamijyo ku dhiirigelinaya dadka soo galootiga ahi ee xirfadaha leh inay dalka yimaadaan. taa waxaa meesha ay ka saaraysaa ardayda ama dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhoofaan ay madaxa martay in haddii dalalka kale aad rabtid in laga aqbalo ama aad joogtid waxaa laga rabaa ay tahay inaad tahay qof xirfad leh ama aqoon leh. waayo dalkan wuxuu ka fikirayaa qofkan aniga dalkayga imanaya ama joogaya muxuu dalkayga kusoo biirinaya. taasi waxay meesha ka saaraysaa marka qof dheeraad dalka ku ah idina uma baahna waxaa doontid ahow. midda saddexaad waxay tahay dalka Canada wuxuu gaar ku yahay ayaa waxaa ka mid ah inaad codsan karto inaad dalka joogto adigoo sheeganaya xirfad shaqo laakiin dalka wax ku ool ku ah. halka waxaan uga baxayaa dalka Canada. dalka labaad wuxuu yahay ee 10 dowladood ka mid ah waa dalka Australia. waa taqaanaan idinka sheekayn mayo, balse muddada joogitaankeedu waa 2 sano ilaa 3 sano. haddaba waxyaalaha xaqa uu yeelanayo ardayga dalkaas wax ku barta ma aha qof iska tagayo iska joogo tahriiba ama kama hadlayo qof kama hadlayo ee qaxooti qortay ayankan waxyaalaha kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa qofka dalkaas wax ku bartay sifadu doono ha yeesho. marka wuxuu xaq u yeelanayaa qofkaasi marka koobaad inuu dalka ku noolaado, inuu ka shaqeeyo dalkaas markii uu wax barto, isagoo sii maraya barnaamijka la magac baxay course of work after studying. waa barnaamij la isla yaqaano oo ah Soomaali ahaan wadiiqada shaqo ee waxbarashada kadib ayuu qofku u marayaa, nidaamkaas u marayaa kadibna maxaa u suurtagelaysa inuu shaqo helo, shaqadaasina ay u suurtagelaysa dalka inuu sii joogo. taasi waa midda labaad. muddada ay tahay qofku uu dalkaas joogo way kala duwan tahay, waxaana ku kala duwan tahay marka loo eego heerka waxbarasho ee la fili karo inuu qofku heli karo marka uu waxbarashada dhameeyo kadib. iyadoo fiisaha dalka Australia qiimihiisu uu yahay lacag dhan $2,235. dhinacaasi waa fursadii aad dalka Australia ku joogi lahayd. fursadaha ka banaan dalka Australia markaan ka hadalo, marka koowaad waa kuwa xoogan sida kuwa la xiriira caafimaadka, engineerinka iyo teknolojiyadda. haddii saddexdaas aad ku fiican tahay waa orod inaad shaqo ka hesho dalka Australia. iyagoo jaamacaduhu sidoo kale ay qeyb ay ka qaataan taageerida ardayda, bimacnaa markii ardaygu uu dalka Australia wax ku barto jaamacaddii baa waxay ku taageeraysaa ama ay garab ugu siinaysaa ardaygii sidii uu shaqo ku heli lahaa. taasoo ah bay ku leeyihiin in shaqooyinka lagu soo bandhigo baraha bulshada. waad ogtihiin shaqooyinka qaar baraha bulshada lagu soo bandhigaa laakiin inagu keer ma siino. iyo sidoo kale baraha lagu yaqaano in shaqooyinka lagu soo xayeysiiyo. taasi waa fursadaha shaqo ee dalka Australia qofku uu ka heli karo iyo habku u heli karo. waxaa kaloo fudud in gobolada dalka Australia weeye qofku uu kala goosho waxa la yiraahdo almuwaasalaad ama transportationka ee dalka gudihiisa. isu gooshitaankeedu waa mid fudud taasoo kuu suurtagelinaysa inaad magaalooyin kala duwan ka shaqaysato. taana waxaan uga baxayaa dalka Australia waana dalka labaad. dalka saddexaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka New Zealand. muddada joogitaanka dalka New Zealand waa 3 sano. fursadaha marka aad ka heli kartid ee dalkaas ku keeni kara inaad sii joogtid ayaa waxay tahay inaad gudbisato fiisaha shaqo waxbarashada kadib. markii waxbarashadaas aad dhamaynayso ayaa waxaa laga rabaa inaad gudbisato inaad hesho fiiso aad ku sahlaya inaad dalka ku sii joogto. taasna ay tahay inaad tahay qof shaqaynaya. haddaba shardiga laga rabo maxay tahay taa ku xiran? kow waxay tahay inaad codsiga gudbisato inta lagu jiro 12 bilood ee ugu dambeeya ee fiisaha dalku joog ee ardaynimo. bimacnaa maadaama sifo sharci ah dalka aad ku joogtay oo ardaynimo ah ma aha wax kale, waxaa laga rabaa fiisaha markii uu 1 sano ka dhiman yahay dhicitaankiisu inaad gudbisato fiisaha shaqo ee dalka aad ku sii joogi lahayd, iyadoo muddada lagu ogolaanayo inaad New Zealand sii joogto ay xadidayso marba waxa aad ku takhasustay.
bimacnaa jaamacaddaas aad ka baxday facultiga aad ka dhigatay ayaa waxay ku keenaysaa ama ay horseed u noqonaysaa ama ay xadidaysaa waqtiga xaqa aad u yeelinaysid ama lagu ogolaanayo ee dalka New Zealand aad sii joogaysid. taasi marka waxay ku iftiiminaysaa inaad facultiyada kuu sahlaya muddo dheer inaad dalkaas sii joogto inaad marka hore sii doorato haddii fursadda waxbarasho ee dalka New Zealand aad hesho ama iska bixi ama scholarship ku helo waxaad doonto aad ku heshid. iyadoo fiisaha New Zealand uu yahay adduun lacageed oo dhan $1,670. taasi waa fursadihii muxuu ahay guud ee dalkaas aad ku joogi lahayd. dhinaca kale haddaba maxay yihiin fursadaha ka banaan ee shaqo ee dalka New Zealand? ta koowaad horta waxaa weeye dhinaca waxbarashada. haddii jaamacadda ka baxdid ama institution la aqoonsan yahay dalka New Zealand ku yaala haddii aad ka baxdid waxa koowaad ee si fudud aad ku helisid waxay tahay qaybta waxbarashada inaad ka shaqeyn karto. midda labaadna waxay tahay kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxaa weeye xirfadaha gacanta. waa bad xirfad gacmeed haddaad leedahay orod baad ku helaysaa. taasina waa qodobka saddexaad. sidoo kale waxaa fudud soo gelitaanka dalka New Zealand ayna sahlan tahay inaad hesho sidoo kale fiisaheeda dalku gal adoo fiisaha markii aad timaadid aad u bedelan kartid mid muddo dheer aad kusii joogi kartid. halkana waxaan uga baxayaa dalkii saddexaad ee New Zealand. dalka afraad waa maxay? waa dalka Ingiriiska. waa taqaanaan muddada joogitaanka ee dalka Ingiriisku waa 2 sano iyadoo 3 sano ay tahay dadka haysta shahaadada PhD-da. fursadaha ka banaan maxay tahay dalka Ingiriiska ee qofka ardayga ahi uu ku joogi karo? waxaan ku celcelinayaa ereyga arday waana waxa aan rabno inaan fahansiino qofka rabo fursadda waxbarasho ee dalkaas ka helay fursadaha dahabiga ah ee uu heli karo. waxaa suurtagal u ah ardayga dalkaas wax ku barta inay helaan fiisaha u gaarka ah ee dadka jaamacadaha dhameeya taasoo fursad kuu siinaysa sii joogitaanka dalka inaad ka shaqaysato marka waxbarashadaadu ay ku dhammaato kadib. hase yeeshee shardiga lagaa rabo ayaa wuxuu yahay codsiga fiisahaas aad dalka ku sii joogayso inaad codsato ka hor inta uusan kaa dhicin fiisaha ardaynimo. waxaa kaloo lagu ogol yahay sifada sharci aad hesho inaad qoyskiinana keensato. waxaa kaloo lagu ogol yahay dalka Ingiriiska inaad fiisaha u bedelan karto. waa fiisahaagii fiisa waqti dheer kuu sii jiri kara kaasoo ah fiisaha xirfadeed ama skilled worker visa waxa loo yaqaano. taasi waxay meesha walaalku idinku muujinaysaa in dalka Ingiriiska dhowr fursad aad ka heli kartid. kow sifada sharciyeed dalka aad ku joogtid oo ay ardaynimo inaad horta qoyskiina keeni karto. midda labaadna in fiisahaagii ku meel gaarka ahaa ee temporary-ga ahaa inaad u bedelan karto fiisaha loo maro barnaamijka la yiraahdo skilled worker visa inaad ku bedelan kartid kaasoo kuu sahlaya inaad waqtigii aad joogi lahayd waqti ka dheer aad joogtid. taasi waa fursadaha aad dalka ku joogi kartid. fursadaha shaqo ee dalka Ingiriiska ka banaan maxay yihiin marka? fursadaha ugu badan ee dalka Ingiriiska ee shaqooyin ee laga helayo waxay tahay walaalayaal guud ahaan waa dhinaca caafimaadka. midda labaad waxay tahay xirfadaha la xiriira kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxay tahay adeegyada lacagaha forex ha ahaato bitcoin ha ahaato waxyaalihii kale garanaysaan ha ahaato. haddii aad xirfadahaas taqaanid iyaduna waa maxay? waa xirfadaha sida fudud aad uga shaqada ugu heli karto. halkaana waxaan uga baxayaa dalka Ingiriiska. dalka shanaad ee 10 dowladood ka mid ah waa dalka Finland. dalka Finland muddada joogitaankeedu waa 2 sano. haddaba fursadaha ku yaala dalka Finland waxaa kow ka ah wuxuu dalkani kuu siinayaa ama u siiya ardayda dawliga ah ee jaamacadaheeda ka baxa ama dhameeya ogolaanshiyaha joogitaanka si ay shaqo u raadsadaan ama ay mashaariic u bilaabaan. taasi maxay ku iftiiminaysaa? waxay ku iftiiminaysaa haddii aad shaqaysan karto fursaddii aad dalkaas uga shaqaysan lahayd waa banaanka. midda labaad waxay tahay haddii qof hal abuur leh aad tahay oo fikrad shaqaynaysa leh aad tahay mashaariic ayaa dalka ka bilaabi kartaa adoo helaya shirkadihii ama hay-adihii ku maalgelin lahaa. haddaba fursadahaasi waxaa shardi u ah kow inaad dalkaas jaamacad ku baratay. waa inaad dalkaas jaamacad dalkaas ku taala aad wax ku baratay aadna dhamaysay. haddaba shardiga muxuu ahay ardaygaas looga baahan yahay waa maxay ee dalka wax ku bartay? in qofka codsigaas soo gudbisanaya inuu dhameeyay heerkii jaamacadeed ama baaritaan aqooneed. haddii labadaas aad dhamaysid oo laga hubsado waad helaysaa shaqadii. sidoo kale fursadaha dalka Finland ka banaan ayaa waxay tahay
waa kuwa horta kala siman dalalkii aan horey usoo xusnay. hase yeeshee arrinka dalkan Finland gaarka u ah ayaa wuxuu yahay in ay taageerto mashaariicda kobcaysa iyo damaanad qaadka nidaamka bulsho ee loo wada dhan yahay. bimacnaa dalka haddii aad joogtid, haddiiba aad hal abuur leedahay, haddiiba qof shaqaysan kara aad tahay, waxaa weeye wax isir sooc ah ama nacayb ah ama dal hebel baad u dhalato lagu soocayo ma jirto. halkana waxaan uga gudbayaa dalka shanaad. dalka lixaad wuxuu yahay waa dalka Ireland. muddada dalka Ireland joogitaankeeda ahi waa 2 sano. fursadaha marka aad dalka ku joogi karto waxay tahay walaalayaal, waxay dalkani Ireland ay siinaysaa ardayda jaamacadaheeda ka baxa fiisa dalka lagu sii joogi karo, iyadoo u sii maraysa barnaamijka la magac baxay Level 4 Graduate Program ama waxa la yiraahdo al-khaarijina min al-mustawa ar-raabic, kaasoo ardayga u suurtagelinaya in ardayga dawliga ah ama caalamka kale ka yimid in uu sii joogo dalkaas muddo 2 sano ah kadib marka ay dhameeyaan waxbarashadii dalkaas ay ku baranayeen ama jaamacadihii dalkaas ay dhiganayeen. sidoo kale waxay leeyihiin ardayda dalkaas wax ku dhameeya xuquuq ah inay helaan xuquuq dhammaystiran iyagoo ka faa'iideysanaya difaaca sharciyadeed iyo sinaanta mushaharka. dalkan Ireland xaq kuu siinaya in dalkaas aad joogtid, oo haddii waxa dulmi ah lagu geysto dalkiiba ku difaacaya. mid labaadna waa maxay? mushaharkaaga lagu siin doona haddii dalkaas shaqo aad ka heshid ma noqon doona mid la dhaho dalal kale ka yimid ama Afrika ka yimid ama Soomaaliya ka yimid mushahar hoose hala siiyo. waa maxay? shaqadaas magaceeda ayaa waxaa lagu siinayaa shaqooyinka noocaas ah mushaharka qofku xaq u leeyahay in lagu siiyo. marka ama luqadda ha kugu adkaato oo Ingiriiska daciif ha ahaado, ama dhaqanka dalkaas yaada aqoonin, ama aad noqotid qof isla markaas jaamacadii dhameeyay, haddiiba aad shaqo hesho mushaharkaaga ma noqon doono mid lagu dilmiyo. halkana waxaan uga baxayaa dalka lixaad ee ka mid ah 10 dowladood ee ardada wax ku barata ay xaq u yeelanayaan in dalka ay sii joogaan ama ay ka shaqaystaan. dalka toddobaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka Jarmalka. muddada joogitaanka ee dalka Jarmalku waa 18 bilood. fursadaha haddaba aad ku joogi kartid waxay tahay walaalayaal, waxaa suurtagal ku ah ardayga caalamka kale ka yimid ee wax ku barta dalka Jarmalka inay u gudbistaan codsiga u ogolaanaya ku sii nagaanshiyaha dalkaas iyagoo shaqo doon ah. bimacnaa marka aad waxbarashada ku dhamaysato dalka Jarmalka waxaad gudbisanaysaa codsiga ah inaad dalkaas sii joogto adigoo shaqaynaya. hase yeeshee shardiga laga rabo ayaa wuxuu yahay in shardiga lagu xirayo uu yahay sugnaanta dhamaystirka waxbarasho iyo caymiska caafimaad. bimacnaa waxaad sugaysaa in dalkaas aad wax ku baratay isla markaana aad haysato caymiska caafimaadka. fursadaha shaqo ee dalka Jarmalka ka banaan ayaa waxay yihiin waa kuwa horta heerkeedu uu aad u sareeyo, iyagoo inta badan dadka wax ku bartay dalkan oo dalka Jarmalka lagu doorto dalalka ay ka soo jeedaan iyo qiimaha ay ku fadhido xirfadda uu qofku leeyahay. halkan waxaad moodaa dalalkii hore ee aan soo sheegnay 6 ahaa dalka Jarmalku inuu ka duwan yahay. waxaa la eegayaa dalka aad ka soo jeedid, sidoo kalena waxaa la eegayaa xirfadda qofku uu leeyahay. mid labaad si aan laga gudbi karin ayaa waxay tahay xirfadda aad taqaano waxa ay ku goyn karto, marka waa inaad maanka ku sii haysaa. balse arrinka ku gaarka ah dalka Jarmalka ayaa wuxuu yahay in waxbarashadu ay tahay mid u eg inay bilaash tahay. bimacnaa sida qofka loogu sahlayo, loogu fududeynayo, sida fudud uu ugu helayo ayaa waxay u eg tahay mid lacag la'aan ah, taasoo ay walaalayaal kulansanayso fududeyn aad u weyn oo ah qofka joogitaankiisa dalka ee ku meel gaarka ahaa inuu u bedesho mid muddo dheer sii jira. bimacnaa maadaama muddo xadidan waxbarashadaadu ay ahayd tusaale ahaan sanad oo kale, 2 sano oo kale, 8 bilood oo kale iyo wixii la mid ahaa, ayaa inta aysan kaa dhicin ayaa waxaad helaysaa fursad aad muddadii kusii kororsato. halkaana waxaan uga baxaynaa dalka Jarmalka. dalka 8aadi ee 10 dowladood ka mid ah ayaa wuxuu yahay dalka Holland. dalka Holland muddada joogitaankeedu waa 1 sano kaliya. haddaba fursadaha aad helayso ee dalkan haddii aad wax ku barataa waxay tahay walaalayaal inuu qofku gudbisto ama gudbisto codsiga fiisaha dalku joog ee loo yaqaano orientation year
ama waxaa loo yaqaana carabi ahaan sanatu atawjiih, waa sanadka hagidda si uu shaqo u raadsado qof ardayga dalka wax ku barta, ama uu u bilaabo ama uu u aasaasto mashruuc isaga u gaar ah. waa fursadda dalkaas aad ku sii joogi karto sifada ardaynimo ama jaamacadeed weeye markii aad dhammaysato. haddaba fursadaha shaqo ee dalka Holland ka bannaan ayaa waxay tahay, waa mid horta marka koowaad filashadeeda walaalayaal ay aada u sarreyso, iyadooba heerka shaqaalaysiinta ardayda jaamacadaha ka baxa ayba dhaafsan tahay tiro ahaan 90%. taasi maxay qalbiga kugu qaboojinaysaa haddiiba dalka Holland jaamacadaha ku yaalla mid ka mid a aad ka baxdo oo aad shahaado ka qaadato inaad horey shaqo ka helayso, iyadoo si gaar ah shaqooyinka looga helo dalka Holland ay ka midka yihiin kuwa la xiriira tiknoolajiyadda, arrimaha deegaanka iyo beeraha. kuwaasaa si gaar ah ay bad u tahay haddii aad la xiriirto waxyaalaha aad ku takhasustay inaad helayso. arrinkase ku gaarka ah ee dalka Holland ayaa wuxuu yahay walaalayaal in ay tahay dalka Holland deegaan aqooneed oo taageerta hal abuurka qofku uu leeyahay. taasi waxay ka dhigan tahay haddii aad qof hal abuur leh aad tahay, dalka Holland inuu yahay dalkii aad hal abuurkaga kusoo bandhigi lahayd, aadna uga miro dhalin lahayd. halkan waxaan uga baxayaa iyadana dalka 8aad. dalka 9aad ee ka mid ah dalalka qofkii wax ku barta uu sii joogi karo, shaqana uu ka heli karo, ayaa waxaa ka mid ah dalka Sweden. muddada joogitaanka ee dalka Sweden waa 12 bilood ama waa 1 sano. fursadaha haddaba aad halkaas kusii joogi karta ayaa waxay tahay in dalka uu ku siinayo fiisa ku meel gaar ah si aad shaqo u raadsato ama aad u bilowdo mashruuc adiga ku gaar ah. arrinkaas milicsiga mudan ayaase wuxuu yahay walaalayaal in ardaydaas ay ka mid yihiin xitaa ardayda u dhashay dalka midowga Yurub, macnaha ardayda dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Holland ka timaada ee dalka Sweden taga, iyo ardayda ka timaada Soomaaliya iyo Afrika iyo kulli dalalkaasi la mid bay yihiin, bimacnaa tixgelin gaar ah oo la siinayo ma jirto. iyadoo haddaba qasab ay ku tahay weliba inay ugu yaraan 2 semester ay wax ku bartaan ama ay noqdaan kuwa waxbarashada ku qaatay gudaha dalka Sweden. fiiri waa lagu fududeeyay haddii 2 semester kaliya dalka muxuu ahay Sweden aad wax ku baratay, horaad shaqo ka helaysaa. fursadaha shaqo ee dalka Sweden ka bannaan maxay yihiin? shaqooyinka haddaba ka bannaan waxay hoos tagaan tiknoolajiyadda, tamarta dabiiciga ah iyo caafimaadka. arrimaha ku gaarka ah dalka Sweden ayaase wuxuu yahay inay jiraan 2 la taliye oo jaamacadaha dalkaas u qaabilsan inay ku taageeraan isla markaana hagaan ardaydu sidii ay u heli lahaayeen shaqooyinka. haddii arday aad tahay Afrika ka tagay, gaar ahaan Soomaaliya, laakiin aan aqoon habka shaqooyinka loo raadsado, meelaha laga helo, sida loo baarbaaro, sida muxuu ahaaye loo xoraansado, haddii aad aqoon, dalkan ayaa waxaa lagu leeyahay Sweden wuxuu leeyahay la taliyaal jaamacadaha la shaqeeya oo ardaygii jaamacadahooda ka baxa ku taageerayaba si uu shaqadaas u helo. halkan waxaan uga baxaynaa dalka Sweden, dalka 10aad ee 10 dowladood ee xaqa kuu siinaya haddii aad jaamacadahooda ka baxdo inaad shaqo hesho ayaa wuxuu yahay dalka Mareykanka. haddaba muddada joogitaanka dalka Mareykanku waa 12 bilood, iyadoo 24 bilood looga dhigo dadka haysta takhasuska. waa si gaar ah ayaa iska fiiri dadka haysta takhasuska tiknoolajiyadda, injineerinka iyo xisaabaadka. haddii aad saddexdaa mid ka mid ah aad haysato shahaado takhasusi ah oo la xiriirta kuwaas, 24 bilood bimacnaa 2 sano ayaad xaq u leedahay inaad joogto dalka Mareykanka. haddaba fursadaha ee aad dalka Mareykanka ku joogi karto muxuu yahay? dalka Mareykanka wuxuu siiyaa ardayda dalkaas wax ku barata ama ku dhammaysata fiisaha kumeel gaarka ah iyadoo loo sii marayo barnaamijka loo yaqaano optional practical training ama at-tadriib al-cilmi al-ikhtiyaari. waa tababarka cilmiyeed ee qofku uu madax bannaan yahay ayaa loo sii marayaa. haddaba shardiga laga rabo muxuu yahay? shardiga laga rabo wuxuu yahay inaad dhammaysato 1 sano oo waxbarasho ama inaad waxbarashada ku dhammaysatay hay-ad waxbarasho laga aqoonsan yahay dalka Mareykanka. macnaha waxaa laga wadaa qasab ma aha inaad jaamacad ka baxday, arday jaamacadeed inaad tahay qasab ma aha markaad Mareykanka joogto. maxaa qasab ah oo maxaa macnaha fursad lagu siinayaa in ay jiraan goobo kale oo waxbarasho
haddii aad ka baxday oo shahaadada aad haysatid laakiin dalka Mareykanka uu aqoonsan yahay ilaa oo 6 bilood ahaato waxa weeye shuruudda waad buuxisay. intaas kadib fursadaha shaqo ee dalka Mareykanka laga helo waa kuwa horta fursadaheedu ay aad u badan yihiin kalena duwan yihiin waliba si gaar ah dhinaca tacliinta. waxaase fursadda sii joogitaanka Mareykanka sii badinaya ayaa wuxuu yahay walaalayaal inaad taageero ka heli karto goobta aad ka shaqaynayso si aad u hesho fiisa ku meel gaar ah oo aad dalka ku sii joogi karto. bimacnaa goobaad ka shaqaynaysay kadibna fiisihii dalku jooga ka dhacay isla goobtii aad ka shaqaynaysay shirkadii aad u shaqaynaysay waxdii aad u shaqaynaysay ayaaba recommendation ka bixinaysa sidii aad xaq ugu muxuu ahaay heli lahayd in fiisaha lagu siiyo. bimacnaa marka adigu kaliya lama kuma muxuu ahaay dagaalamaysid inaad hayso fiisihii dalka ku joogi lahayd balse waxaa garab kugu siinaysa oo kula dadaalaysa isla goobtii aad ka shaqaynaysay. hase yeeshee waxaa ku gaarka ah Mareykanka ayaa isaguna wuxuu yahay joogitaankaagii ku meel gaarka ahaa inaad u bedelan karto mid xilli dheer aad ku sii joogto adigoo u sii maraya programka loo yaqaano Professional Work Visa ama تأشيرة العلم المهني وفيسها شقوينك رسميك نظام كاساد مريسا كدبنا محاد سمينيسا حق ويالنيسا إنا سي جوجتو هدبا طبعا كاس دولاد وحي أهايين طبعا كدولادود هدي آد واحد كبرتيد آد حق ويالنيسو إنا دل كاس كشاقيسو بمعنى آد سي جوجتو أو آد كشاقيساتو أما هدي آد قف حال أبور له تهي مشروع بالله بكرا آد تهي in aad muxuu ahaay dalkaas mashruuci aad ka bilaabanaysid guud ahaan nuxurka loo socdo uu yahay waxa barashada dalkaas hadii aad ku dhamayso inaad dalkaas aad sii joogayso aad ka baqaynin in dalkaas laga soo celiyo. hadaba waxaan rajaynayaa in ay fursad u tahay ardayda Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka haysato markii ay jaamacadaha dalka ka baxaan inaysan helin goob laga shaqaysiyo iyadoo xaaladaha aad garanaysaan run ahaantii gaamuray ee dalka ka jira inay si gaar ah u saameeyeen dalkii talentiga lahaa dadkii xirfadaha lahaa dadkii jaamiciyiinta ahaa ee dalka wax ku soo beerin lahaa. taasi waa mid sidoo kale waxay ku sahlaysaa halkii aad lacago badan ku bixin lahaydeen barnaamijyo kale oo run ahaantii shul iyo shal ah bimacnaa aan garanti ahayn inaad helaysaan in tani bedelkeeda idin noqoto oo sifo sharci ah aad martaan waxa la hubo aad lacag ku bixisaan si la hubana aad u helaysaan. waxaan ka wadaa haddaan sii jilciyo halkii aad barnaamijyo kale oo 10,000 iyo 5,000 iyo wax la mid ah dad kale ay idinka idin noqon lahaayeen magafe qarsoon oo lacagtaadu aysan xataa aadan garan karin inaad helaysid idin kale xataa qaarkood ay say u sugayeen ay ka qoosteen aad u gali lahaydeen inay idinka qiimo badan tahay barnaamijyadan la hubo aad muxuu ahaay ku bixisaan sifa sharci ah dalkii aad ku tagtaan sifa sharci aad ku joogtaan sifa sharci ahna aad ku shaqaysataan adoona cidna aysan damiin ka ahayn adiga oo dalkii aad tagaysay iyo adigu aad tiin dad si toos oo wada xariirayo cid khabaan ah oo idin dhaxayso adiga laaluush ka qaadanaysa ama dulmi kugu sameyn karta aysan jirin. gabagabadii marka waxaan leeyahay barnaamijyadaas ardayda Soomaaliyeed muhiim buu yahay gala goobaha laga apply gareeyo raadiya xogteeda raadiya iskuna daya in aad indhaha kala furtaan oo aad ka xorowdaan in dad kale ay damiin idin ka noqdaan wax idinku aad heli kartaan. aad baad u mahadsantiin waadee channelkan ay tahay fadlan subscribe dheh haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii su'aalaad qabtid dhinaca hoose fariimaha ayaad nagula wadaagi kartaa.